qurba joognimadu ma doorasha ma choice bay ku timid ma chance ba fursad qofku uu helay ba mise waa accident wali taamay isweydiiseen waxay la tahay qurba joognimadu inaanay choice ahayn waxa laga yaabaa inay chance mararka qaar dadka qaarkii ugu timid waayo waxbarasho dibadda u tagay ama safaarada dibadda baa waalidkii geeyay ama ganacsi baa geeyay ama waayadii hore ee siimaanada ay England iyo ka sheekeyn jireen Talyaaniga iyo Belgium Antwerp miyay oran jireen odayaasheen markay Soomaaliyeeyeen ayaa bulshooyinka qaar ku beermeen dhulka dabadeedna waxa laga yaabaa qofku markuu waxbarashadii bartay inuu shaqo ka helay isii halkan ku noolow dabadeedna taa fursad chance ay ahayd geysay laakiin qurba joognimada maanta aynu u badannahay ku dhawaad 2 milyan oo Soomaali ah ay dibadda u joogaan waa wax ku timid duruuf iyo accident waxaynu doorannay ama aad doorateen ma aha waa waxay keentay duruufo colaadeed iyo dagaallo dalka ka dhacay qurba joogta Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 1.2 ilaa 2 milyan marka la isku daro baan isleeyahay dadka wadamada dibaddooda ku nool ee ka shaqeeya ee saameynta weyn ku leh wixii barakiciyay waa colaad waa abaar iyo musiibooyin dalka ka kaca wadamada jaarka ay u kaceen iyo duruufo kale oo keenay laakiin intii qurba joogta Soomaaliyeed ay dibadda joogtay maxay ku yeesheen koow dalka gudihiisa laba iyo dalka dibadiisa meelaha ay ku noolaayeen ay ku dhaqnaayeen dalka dibadiisa marka ugu horeysa sheekhuna waa ka hadlay ummad muslimiina baynu nahay taariikh dheer leh meel kasta oo aad ku nooshahayba xadiiskii nabigeena ahaa wa khaliqun nas bi khuluqin hasan meesha aad ku nooshahay ee duruuftu ku geysay nidaamkay ku nool yihiin ilaali nabad kula noolow edeb kula noolow akhlaaq fiican kula noolow isku tay dhaqan baad madashaa ummad baad madashaa wax lagaaga daydo inaad ku soo biiriso laakiin ha ula tagin adiyad fikir khaldan oo xaq jira nabadgelyadooda inaad saameyn ku samaysad taban oo aad dhibaatooyin u geysato dabeedna ay dhahdaan dadkana xaggay noogaga yimaadeen qurba joogtu saameyn weyn bay ku leedahay dalka gudihiisa golaha shacabka ilaa 107 xildhibaan baa qurba joog ka soo jeeda waxa kale saameyn ku leedahay weyn golaha wasiirada 3 meelood oo hal hadayna ka badnayn qurba joog weeyaan Kanada oo kaliya 8 wasiir ayaa ka soo jeeda maamulada iyo maamul goboleedyada waa wada ogtihiin saameynta ay qurba joogtu ku leedahay iyo sida ay xubnaha ugu tahay ugu jirto marka dibadii hadaad joogtaan waa ka muuqanaa saameynta dadka Soomaalidu ay dibadda ku leeyihiin run ahaantii aad bay u weyn tahay ganacsi haday tahay waa dad dhiiran oo ganacsi laga bartay sawaaxiligu ganacsi ma aqoonin intaynan Kenya aad u tagin baaniyaal iyo hindi baa haysay dukaamada dhan oo u shaqeyn jireen Soomaaliya maantana waan ilbixinay islii iyo dhulka aydan aragteen ilaa East Africa ganacsiga Soomaalidu aad buu uga socdaa waagii hore Ingiriiska xataa Soomaalidu markay tagtay Nairobi iyo dhulkan Uganda ilaa Tanzania ganacsiga Soomaalidu waa jiray Ethiopia iyo dhulka kale ilaa Eritrea waa jiray marka Soomaalidu waa dad firfircoon oo maskax furan oo dhulka ay tagaan saameyn ku yeesha xadaarad ilbaxnimo ganacsi in laga dhaxlo iyo islaamka oo aad u fidiyaan dadka walaalaheena carabta ah ee laga yaabo inay sheegtaan in islaamku dhulkooda Maka iyo Madiina ka dilaacay laakiin Soomaaligu uu kaga dhiiran yahay Minneapolis iyo Canada iyo Vatican-ka inuu masaajid ka dhiso salaada ka oogo Allahu akbar yiraahdo dhiiranaanta iyo maskaxdaas iyo firfircoonida iyo xadaarada aynu gudbinayno ee islaamnimada ah xadaarada aynu gudbinayno ee ganacsiga xadaarada aynu gudbinayno ee ilbaxnimada ah waxa looga baahan yahay inaynu ku darno deganaansho iyo inaynu dhiirigelino amniga inaynu dhiirigelino inaynu ummadahaas la falgalno si saameyn ilbaxnimo ah ku leh oo aynu wax ku kordhinayno guulana waa ka soo jeedin hoynay waa arkaysaan ama ha noqoto Canada wasiiradiina ka mid nahay Mo Farah oo imaka golayaashii kale oo aan qayb kan iyo haday tahay aqoonta maskaxdii iyo waaya aragnimada ay la soo noqdeen oo iyadana ay ku dhiirigeliyeen in wax laga faa'iideysto laga barto waa saameynta ay qurba joogto positive-ka ah ee wanaagsan ay maaragtay ku soo hooynayaan guriga celinayaan dalkooda marka waxaan rabnaa Soomaalida maanta iyo qurba joogta doorka ay ku leedahay
qolyihiina dalka jooga ee qurbaha ka yimid run ahaantii Soomaaliya xogagal baa u tihiin qolyaha oo waxa weeyaan waxaan ka hadlayaa waxaad og tahay ma kuu sheega qolyahan qurba joogta ee aan dalkii ka warqabin waxoogaa baan rabaa inaan ka taataabto 19 baynu burburnay taariikh dheer baan lahayn waan soo halganay dawlad rayida ay noo dhalatay dawlad militariya ku xigtay 30 sanadood qaran jira oo qableh baynu ahay waa burburnay waan baabaanay waan qaxnay ilaahay idamkiisa carta ayaynu isugu nimid muddo dheer oo shirardu heshiisiin jireen kadib 2000 wax wanaagsan baa Soomaaliya u qabsoomay nidaamka 4.5 iyo dawladnimadii aasaasantay tabashooyin ha jiraan xalmiya mise xulmiya waa wax kale oo la isweydiin karo laakiin ugu yaraan adaraaskii baa soo noqday madaxweynaha Soomaaliya waayo waa Cabdulqaasim ra'iisul wasaaruhu waayo waa Cali Khaliif galay wasiirka arrimaha dibadda waayo waa Ismaaciil Buuba wasiirkii boostadu mee waxa soo noqotay adaraaskii hadii warqad lagu soo dirayo Soomaalinimadii yagleel baa inoo dhacay ilaa 2004 bay jirtay 2004 inbigaati markii lagu shiray dawladda Cabdullaahi Yuusuf duruufo kasta ha dhacaan haddaco halgankii muqaawamada iyo taangigii Tigreega iyo inaynu xabashi la dagaalanno haddana calankii Soomaaliya aakhirkii madaxtooyadu ka degay madaxtooyada la aasaas in calankii Soomaaliya madaxweynihiiba joogan dawladdu joogta xamar 2004 ilaa 2009 duruuf baa jirtay waxba ay noo qabsoomayo soo kordhay 2009 ilaa 2010 madaxweynaheenu waa joogaa wax wanaagsan baa inoo qabsoomay afkaartii kala duwaneed maxaakiimtii islaamiga ahaa 550 baarlamaana dawladdii adareyskii oo sii kordha iyo meel inay soo gaarsiiyeen inay ku wareejiyeen 2012 ilaa 16 dastuurku meel gaadha iyo dawlad maamul goboleedadii oo dhamaystirmay iyo nidaamkii dawladnimada yagleelkiisii iyo caalamkii oo inagu soo jeedsaday inaynu uma jirtanahay iyaduna waa hanaqaadkii ay xukuumaddaasi inoo dhisan tahay dastuurkii ku meel gaarka ahaa u baahan yahay in la sii ableeyo dawladnimada qoriisu dhiibka ahayd ee madaxweynayaashii min Cabdulqaasim Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Shariif Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaareyaashoodii xukuumaddiiba wax wanaagsan soo qabteen heerna soo gaarsiiyeen maanta madaxweyne Farmaajo wuxuu hormuud inoogu yahay iyo ra'iisul wasaaruhuba in halka aynu ka sii hana qaadno Soomaaliya sharaftii iyo karaamadii lahaydna dib ay ugu soo noqoto labadaas sanadood iyo barka wax badan baa xukuumadda u qabsoomay wax badan baa dawladda u qabsoomay waxay u maqasheen tubaha waaweyn ee ay xukuumadda iyo dalku ku shaqeynayo oo ugu horeeyo amnigu hadaan amni jirin nabad jiri mayso nolol jiri mayso dalna jiri maayo oo ku xiga dhaqaalaha oo dib habeyn u baahan siyaasadda loo dhan yahay oo arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo barnaamijka isxilqaan iyo arrimaha bulshada amniga waxaynu la halgamaynaa cadow aan muuqanin oo inaga qarsoon haddii cadowgu qof aad garanayso ka soo horjeeda uu yahay waad ku duushaa waad iska dhicisaa laakiin cadow kalarkeena la eeg jaarkaaga ah walaalkaa ah gurigaaga jooga meel kasta kaaga dhuuman kara ayaynu la halgamaynaa oo ku dhisan aragti dhiig iyo cab ah oo la soo waariday 1400 iyo dheeraad sanadood ayaynu muslin ahayn Soomaaliya waa dadkii ugu hor islaamay adduunka ay hijratul uula soo gaadhay dhaqanna umaynaan lahayn intaas oo dhan diinta islaamka waa la fidinayay culimo waaweyn oo Soomaaliyeed oo gumaystihii la halgantay oo diinta fidinteeda ka qayb qaadatay ayaa inala joogtay laakiin inta ay wax qaldameen waxna soo kordheen waxa weeyaan 1967 intii saxwada islaamiga ee cusubi ay hana qaaday afkaarta kala duwan ee salafiga fikirka ikhwaaniga ah ka jihaadiga waxyaabo leeynoo soo weerariday ee ninkii wadaadkii Soomaaliyeed tusbaxuu rogi jiray ee iska cibaadeysan jiray biyaha fiyo oo kiciya ay yimaadeen inta maxaa wanaagsan oo inoo qabsoomay maxaa si qalad ah oo u baahnaa in wax laga qabto waa ta u baahan xadaarad inay ku qotonto fidinta diinta islaamka iyo fiqigeedu nidaamka ummadeed ee jiray uu san duminine maanta waxa la isweydiinaya oo laga yaabaa in Sacuudiga aad uga hadlayaan wahabiisamka fididiisa doorkeebay ku lahaayeen dawladaha kale ujeedada laga lahaana yaani wahabiisamku anigu uma jeedo waa Sheekh Maxamed Cabdul Wahhab Sheekh weyn oo buu ahaa ixtiraam weyn inaga mudan laakiin inteeda sidan aad u nooshihiin wax weyn baa ka khaldanay isqarxiyo istila saameeyay ujeedada inta leeg baa laga lahaa marka culimada islaamku ay noo joogan anigu sheekh meehi inaan khaladaad diiniga galana ma rabo waxa loo baahan yahay inaynu aad u ablaablayno fahamka fikirka khaldan ee dhiig cabka ah ee aragtida khaldan ka yimid sidee looga bixi karaa ee noloshii oo dhanba baabiiyay in aynu iska weydiino wax badan
siyaasadda loo dhan yahay oo waajib hadda nagu saaran yahay 2020 in la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal qof iyo hal cod ku salaysan waxaa naga gudbay sharcigii doorashooyinka oo golaha shacabku ka doodayo iyo dastuurkii oo dib habeentiisii hadda meel wanaagsan ay marayso oo ay dhameystiran tahay laakiin wax iyo nidaamka xisbiyada badan oo aynu hadda u gudubnay waxa si isweydiin loo doodeeda maqashaan federalismka haddii doodaasi bilaabi lahayd hadda waxa ka unkami lahayd aaraa iyo afkaar federaalku miyuu naanfaca dawladda Afrika oo jaarnahay qaarkood iyo kuwa inaga durugsanba waxay qaateen nidaam la yiraahdo ethnic federalism federaalka qowmiyadda ku salaysan dhibaatada dhexdooda aad uga taagan dawlado yaryar oo aan isu gudbaynoon kala madax bannaan oo isdila oo aan kala ganacsan karin ayay u sii dhuranayaan inay noqdaan haddii ethnic federalismki dhibaatadaasi ay ku jirto sidee uu noqon karaa kalaan federalism waa waxyaabihii doodii ahaan lahayd in la bilaabo bilowgii laakiin imaka sidii digaagii iyo maaragtay beedkii chickenka keebaa life cycle-kooda horreeyey ma beedkaa horreeyey ma digaageedaa horreysay falsafadaas hadda u gudbi mayno already waa ku jirnaaba federaalkii laakiin ma federaal baynu rabnaa mise confederal annagu waxaanu diidannahay mar walbana aynu isleenahay Soomaali ma anfacdo in aynu qaadano nidaamka confederaalka ah oo ah fragmentation in la kala burburo oo la kala googo'o oo dad aan isu tallaabin aan noqono oo dawlado yaryar oo magac guud waan wadaagnaa leh laakiin ninka ku dhashay galguduud aanu ka shaqaysan doonin maaragtay Garowe ama aanu tagi karahaynin Baydhaba ama aanu tagi karahaynin Kismaayo haddaynaan kala qeexin nooca federaalka aynu rabnaa muxuu yahay waxaynu u dhuran doonaa confederaal dalka fragmentation gelin doona haddaba waxaan doonayaa inaan ka hadlo maxay yihiin caqabadaha jira haddii maanta halkaasaan maraynaa amnigii wax waa laga qabtay dhaqaalihii waa kobcayaa dib haweyn fiican baa ku socota arrimihii bulshada cisbitaaladii iyo dugsiyadii barayfadka loo haystay qaar badan baanu soo wareejinay si dawladdu adeeg u bixin karto barnaamijka weyn ee isxilqaan oo dhaxalkii aan lahayn dib loogu dhisaayo stadiumkii tiyaatarkii xamar maxaan ku idhaahdaaye madxafkii maktabadii iyo taalooyinkii caanka ahaa ee sayid maxamed cabdulla xasan iyo xaawataako ka mid ahaayeen ayaa imanka aan rabnaa si isxilqaana inay bulshooyinta Soomaaliyeed ku dhisato meel fiicanna maraya kuna eeg 60 guuradda maalintii xorriyadda inaynu u dabaaldegno meelihii dhaxalka aan u lahayn oo dhamiinay dhismaan caqabadaha jira maanta dawladdan haysta waa maxay waxaanu la kowsanay geopolitical cusub oo ku soo kordhay mandaqada oo aan awal hore jiri jirin waxa laga yaabaa waayadii hore jaamacadda carabta iyo Israa'iil baa la hadalhayn jiray wixii meesha waa ka baxeen imaka wax la yiraahdo badda cas iyo Gulf of Aden ayaa jirta oo Israa'iilna dabada kaga hayso oo isku baxa ahba haddii awal hore si loo oran jiray baa loo kala fikir yahay waa isbedelayaa fikirkii geeskan Afrika oo isaguna terrible region loo yaqaano waa geeska Afrika oo mar saameyntiisa inagu leh jaamacadda carabta dhulkii loo oran jiray oo hadda fikirkaasi uu ka xoogan yahay ka la yiraahdo badda cas iyo Gulf of Aden dawlado kala duwan dabada ku hayaan iyo Gulf crisis-ka Khaliij al-Arab dhibaatada ka jirta marka saddexdaas geeskii Afrika inuu dhacno meelaha ugu saameynta badanna Soomaaliya ay tahay mowqif inaad qaalatay noqonaysa saameynteeda taban ayay inagu leeyihiin iyo in la isku dayo cid waliba influence inay inagu yeelato iyo isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika muhiimadiisa leh marka dal waxaynu nahay soo kabanaya markaynu aragtidaas aanu leenahay ama sidaas wax nooga anfacaan waxaan u maleynayaa xildhibaan Maryan Cariif in laga sheegay Soomaaliya waa inaan qurux badan oo nin waliba doonayo Soomaaliya waxay maanta u dhuratay sayid maxamed cabdulla xasan sidii uu yiri yamyamiye qadaad weyn baa la iiga taaglaay mid waliba wuxuu rabaa ama dalin yar ha noqdo ama mid awal hore aan kugu soo dhicin jirin ha noqdo inaanad fikir yeelanin sidoo u fikiro aad u fikirto sidoo u heeso aad u heesto sidoo u raqaso aad u raqasto sidoo u dhaanso aad u dhaansto oo adiga kuusan arkahaynin qof bilaaadmiyo aragti leh Soomaaliya markaas sidaas may ku sii jiri kartaa mucaarid iyo muxaafid qurba joog iyo qaran joog hal shay baa inoo yaala waxaynu u baahannahay qabkii Soomaalida inaynu soo celino walaalayaal Soomaaliya dad qablihi bay ahaan jirtay 60kii waxaanu u heesaynay herar iyo hawaas
wajeeray calanka ho abwaaniinta Soomaaliyeed waxay ka gabiyeen booriga Suez diyaaradii kama qabaadaan kanaal Suez ninkii Ingiriis ahaa ma mari karaba nin reer miyo Soomaaliya ku gabiyay markii Ingiriiskii loo turjumo leeyahay war ninkani muxuu leeyahay kanaal Suez waa laga adkaaday Ingiriiskii oo yaa kaga adkaaday Jarmalkii iyo xulafadii Talyaaniga war ninka bal soo qaaday buu yidhi kanaal Suez buu markab ku qaadu geeyay oo bar Soomaalidu uu sheeg inaan joogo aan wali meesha la iga adkaanin Soomaaligu wuxuu ku gabiyay dhulka muunadii waa makiya guri Madiinaad madadaaladii waa inaad Yurub mashaaxda meeqaan jabtii waa intuu madowgu jooda waxaad moodaysaa inuu tagay Soweto iyo dhulka ninkaasi ama France iyo dhulka maaragtay quruxda badan iyo Yurub meelaha loo dalxiis tago aragtidiisu taas ay ahayd Soomaali u jahaynayo waxa lagu bedelay laga yaabay walaalaheena mucaaradkuna hayga raalli ahaadaane aad xoojinayaan wala ina cunayaa wala ina liqayaa wala ina boobayaa warka kacay uqdad yururta qofkii Soomaaliga ahaa inuu noqdo waxaan leenahay maya dab baan leenahay ummad baanu nahay waagi halganka hadii aanu qablahayn ilaa maanta waanu leenahay waanu sii jireynaa qurba joogta Soomaaliyeed markaa duruufo fara badan ayaa idinku gadaaman faa'iidooyin fara badan oo leedihiin waa haysataan duruufaha Yurub jooga waa ka war haysaan iyo sida ama Yurub ha noqoto ama North America dhalinyaro Soomaaliyeed ku xirxiran tahay in loo baahan yahay inaad midowdaan inaad wada jirtaan sida qoomiyadaha iyo ummadaha kaleba sideen wax wanaagsan ugu kordhinaa waxna uga faa'iideynaa qurbaha aan joogno dhalinyaradeenna u wanaajinaa Ingiriiska kaliya bari dhaweedoon tagay 7500 baa la sheegay oo qof oo dhalinyaro badan inay ku xidhan yihiin hadii warkaasi uu sax yahay madaxweynuhu qofku magacaabay Yurub iyo North America iyo Mareykan iyo dhulka ay dadkeenu inaga xidhan yihiin ba soo kormeera soona eego oo wixii lala qaban karo lala qabta qurba joogtu wax qabad wanaagsan oo saameyn ah bay ku leeyihiin idinku midooba annagu waxaanu idinku yar xamanaa nagana raalli ahaado haddaan dadka dalka jooganahay qabyaaladu qurba joogtay nooga timaadaa wax ma ka jiraan marka haddii taas tahay walaalayaal idinkuna midoobo oo walaaltinimo iyo Soomaalinimo saameyn fiican baa ku leedihiin dibadii ha idin adkayso annagana wax badan baa runtiina tartaano maanta yaa khubaro loo baahan yahay hadii la yiraahdo xafiiskayga ra'iisul wasaaraha hadda timaadida madaxweynaha dadka ugu badan ee wax badan qaban kara ee nala jooga waa qurba joogta wasaaradihii la mid wanaaga ay leedihiin midnimo iyo Soomaalinimana hal lagu laro waxaan doonayaa in aan nin abwaan Soomaaliyeed oo la oran jiray Xaaji Axmed Geedi Rooble loo yaqaan gabay xaddi ayaa duruuf soo martay waxaad moodaa inuu Soomaali ka sheekeynayay ninkaasi waa jabay nin ehela iyo niman baa la gurmaday buur dheero buurta la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa ayay kala baxeen sheekh libaaxiya meesha yaalay oo cuni lahaa hadaanay la gurmanin markii uu jabay oo yaalay intuu kabmaayay dadka qaarkii waa u iman jireen iyagoo jecel bogsashadiisa qaarna waa u iman jireenoo ama muqumada iyo hilibka meesha colada la keenay ama hilbaha yaalay faraha badan in wax ka cuni kara haynin ama raashinka iyo baqaanbaqaaya caanaha ay isla warbalkii maanta ka soo qadeen marka gabay buu xaaladii suugaanta lagu dhigan jiray dugsigii standard 6 7 8 meelaha beerka ka ogsooni baa la oran jiray intii xasuusata abwaan gabaxadii wuxuu yiri bowdada markii aan ka jabay boqomka xoogiisa habeenkiiba way bidan lahaa bahalkii caawilnaaye ragii buurta dheeriga la baxay beerka ka ogsooni markii aynu isu yimayn weyno at least ugu yaraan yagleelkan aynu sameynay walaalaheena Jabuuti ma nidaahnaa waa ragii buurta dheeriga la baxay iyo Ismaaciil Cumar Geele bah cilaamo goortay dhamaaniga dulbooyeysay bah saraysan inay baga itiri beerka ka ogsooni qaarna waa ka dul baroorteen oo Ilaahow aymadii bay yiraahdeen kuwa kalena waa ku diganayeen ma ogtahay ninkii burunji inuu igu dul cuno ii bariidinayay ee aan bar kale ii tarayn beerka ka ogsooni ninkii balad shisheeyaah iga jiray soona bixi waayay ee aanina bogsoodo uun jeclaa boorka ka ogsooni laxaad waa baraare hadduu ii bogsado xoogu haddii bixiyaha ee bahay kay isugu beego abaalbar ah abaalbur iyo dheeraad ah ninba kiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni walaalaheena Turki waxay ka mid yihiin ninba kiisa kaan ugu bedeli marka dawladda Turkiga iyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan aad baan ugu hambalyeynaya
oon leeyahay kaalintaad noogu jirtaan beerka ka ogsoonin tashakkur lan